tababarkan maanta u furmay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Oodweyne iyo shaqaalaha dawladda hoose ayaa ujeedkiisu ahaa amaba loogu magac daray shirka maamul daadejinta iyo wacyigelinta qaranka isla markaana ay hormuud ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha. tababarkan ayaa furitaankiisa goobjoog ka ahaayeen maayirka degmada Oodweyne, xogayaha gobolka, hooyaha fulinta dawladda hoose iyo weliba saraakiil ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha oo iyagu bixinayay tababarkan. waxaana ugu horeyn tababarkan furay xogayaha fulinta dawladda hoose Axmed Maxamed Yuusuf, isla markaana ka warramay tababarkan iyo faa'iidada uu leeyahay xildhibaanada iyo shaqaalaha, isagoo xogayuhu kula dardaarmay ka qaybgalayaasha inay si wacan uga faa'iidaystaan. xogayaha gobolka Daadmare Cabdisalaan Maxamed Jaamac ayaa isaguna ka warramay maamul daadejinta iyo ahmiyadda ay leedahay. Ismaaciil Nuur Magan oo ka mid ahaa saraakiisha ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa isna faahfaahin ka bixiyay tababarkan iyo ujeedooyinka uu ku qotomo. shirka wacyigelinta iyo siyaasadda maamul daadejinta qaranka ayuu ku saabsan yahay oo loo baahan yahay in degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu isku xidhmo maamulkooda degmo ama adeegyada maamulka degmo sidii isku xidhmi lahaa. barnaamijkan oo uu qaranka uga mas'uul yahay ama loo igmaday madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hogaamiye 8 wasaaradood oo ku bahoobay championka barnaamijkan JBLG-ga qaybtiisa wacyigelinta. maayirka degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse oo ugu dambeyntii furitaanka tababarkan ka hadlay ayaa waxa uu yidhi: maadaama barnaamijkan yadaba uu yahay barnaamijkii maamul daadejinta oo la dejiyay siyaasadeedii qorshaheedii, runtii waxay maayaradu iyo shirkii dhaweyso madaxweyne ku-xigeenka isla garteen inay buuxin karaan awoodaha maamul daadejinta lagu sameynayo ay ka mid tahay waxbarashada, biyaha iyo caafimaadka, inay awood buuxda u leeyihiin maamulada dawladda hoose. runtii maayarada dalkuna way ansixiyeen 7 maayar ee GBHU, waxaanan runtii rajaynaynaa anagoo ku kalsoon laamaha iyaga waaxaha shaqaalaha dawladda hoose inay runtii kartidooda u hufi doonaan iyo institutionada dawladda sida waxbarashada iyo caafimaadka wada shaqayn dhow xagga habka xisaabaadka ee IMIska iyo BIMIska oo runtii aan doonayno inaan training dawlad ahaan oo khaasa aan wada yeelano laamaha wasaaradda caafimaadka iyo waxbarashada sidaan u ogaano tayada shaqaalaha waxay u baahan yihiin, sidaan u ogaano ilaha dhaqaale looga raadin karo, sidaan u ogaano ilaha dawooyin ama agab ee laga raadin karo. Muuse Salebaan Maxamed, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, magaalada Oodweyne.